madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa booqasho rasmi ah ku tagay xarunta wasaaradda warfaafinta iyo raadiyaha iyo telefishinka koonfur galbeed. xarunta wasaaradda waxaa ku soo dhaweeyay sihayaha xilka wasaaradda warfaafinta Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waxaana warbixin ka siiyay xaaladda wasaaradda warfaafinta iyo sida ay u shaqeyso. intaasi kadib sihayaha xilka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa uu u soo gudbiyay madaxweynaha qaybta idaacadda halkaasi oo ay ka socotay shaqo maalmeedka. waxaana warbixin sidoo kale ka siiyay agaasimaha raadiyaadka Cumar Mustafa Nuur. madaxweynaha oo si toos ah uga qayb galay barnaamij ka socday idaacadda ayaa waxa uu bulshada kala hadlay idaacadda wuxuuna bulshada uga mahadceliyay sida ay uga qayb qaadanayaan horumarka iyo nabadda. faraxsana wali haytay dareerkay indhayn inaan ku soo bixno wasaaradda warfaafinta iyo raadiyaha sida uu shacabka ka shaqeeyo waana runtii walaanka kooyay shaqo fayle iyo dad fayle oo aan diyaarsan shaqadiyo waan eedan ka mahadnagay aragnay sida ay u shaqeeyaan iyo horumarka iyo deertii wasaaradda iyo walaayo qabati wala ka mahadsan ilaahay ka mahadsan wasiirka iyo shaqaalaheena mahadsiin booqashada intaas ahayti wasaaradda indhayaan wali salaamay inta ku salaamay shacabka reer koonfur galbeed meel kasta oo iyo adduunyada ku roogaan dibad iyo gudaba salaame wali ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام. waleenka bishaareeyay inay geeka dhalatay dowladii adeegaasi shacabka reer koonfur galbeed shacabka reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogaan dad dowladeedu hore aan sheegnay dad nabadeedu dad eed iyo eed ka faraxsan wanaaga iyo dowladnimada ka qanacsan atana waleenka bishaareeyay inay iyo adeegi doono qowsaar iyo shaqeeyo una talada shacabka ka shaqeeyaan taladii ka shaqeeyaan wali ku codsadaan shacabka reer koonfur galbeed meel kasta iyo roogaan sideed gobol inay ku shaqeeyaan dowladnimada nabadda horumarka cadaaladda inay iyo ku shaqeeyaan gacmo isqabsadaan walaalnagadaan isla jiraan inuu wada jarsho yaa ka shaqeey doona insha Allah lan kasta oo reer koonfur galbeed meel kasta isu roogo oo tabashaqaba ama dareen kale gooni qaba dhawayaan wala hadalaan furaana walaalay walaaga isu ka tabadow xalal ku deere dowladnimada wali fadana tuulo kasta oo koonfur galbeed ka taal inuu deersiin meel kasta lanka reer koonfur galbeed isu joogo in dowladda araga wax tarshay amni shay caafimaad shay walbarashadii kulli meeliska deerto jeelna insha Allah isina shacabkii reer koonfur galbeed wala la soo kufaday dowladda la sheego dadku shacabka in dowladii oo garab surmaan la shaqeeyaan hay'ado amniga la shaqeeyaan dadka nimanka shabaabka oo reer koonfur galbeed shal gooy jidadka ku hiri beledku ku roogo waysiin beel kasta ku mari waysiin kula shaqeeyaan hay'ado amniga sida la dagaal lahaay lan kasta tuuladiis iyo beled shay ka seedi lahaay ganacsigiisa ka suubsadi lahaay beero shay ka abuuradi lahaay waxa walbarashadiisa ka suubsadi lahaay in kula shaqeeyaan hay'ado amniga insha Allah ta'ala wali wadneeho ilaahay aro inay magaalo kasta magaalada kala leen furo jidadku hirin inay furno madan wali rajeeyaan shacabka reer koonfur galbeed in iyo dowladnimada ilaashadaan dowladda iyo garab surmaan nabadda ku shaqeeyaan walaaloobaan walaahun qabiil labaad 30 sano la ka jari qabiil wala soo kordhiyo male wal aragi wala fayl dowladnimo wala dhanna deego dowladnimo wala dhanna anfaco horumarkaas horumar iyo dowladnimo la helo walbarashada la helo caafimaadka la helo amniga la helo shaqo abuur la helo mustaqbal la helo dhalinyarada maanta roogda wala in baahan tahay mustaqbal shoolanki geeki dowladda burburaasi hata dhaladii 30 jaro wala aragay dowlad la'aan wala in baahan yahay mustaqbal in baahan yahay madaxda bariyay
wali faday inuu sahalo walbarasho ka filan wali baahaya inuu sahalo caafimaad ka filan wali baahaya inuu sahalo nabad wali baahaya shaqo wali haanasna wali ka heli korahin dawladda bii korto wali codsadaan shacabka reer koonfur galbeed meel kasto iyo roogaan in dawladdu garab surumaan la shaqeeyaan heliyaan walaaloobaan lan wala fidinay gobol nabadeed wala uu ka shaqeeyo dooneen nabadu lan kasta oo walaalkeen oo reer koonfur galbeed oo shacabka koonfur galbeed kumida meel kasta isu roogo wala ka baaqaneen nabad iyo wada noolaasho iyo dawladnimo iyo horumar iyo barwaaqo iyo amniga aan ka baaqana سين الدهالة إن شاء الله ولا نجيلنا هذو إلهي الرئيني ولا يهور لك جاري لكباها لدير مستقبل يهرمر يبرواقة يأمني كفيلا تطون هلان ليكون فرق البيتنا تاسان كبشارية إيدي إيدا مهسنتين madaxweynaha iyo sihayaha xilka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ay sidoo kale booqasho ku tageen xarunta telefishinka koonfur galbeed waxa uu madaxweynaha uu ballan qaaday in la qalabayn doono xarumaha wasaaradda gaar ahaan raadiyaha iyo telefishinka